I'm not an authority. I'm someone who has been a murderer for almost 20 years. Can you say how many people might be doing crimes like you were doing? It would be a guess, but it's far more than 35. 1964 bishii 8 waxay fadhiidayada kambarmiiska cuntada ee kitchenka dibadda waxa uu soo galay wiilka iyadoo tahay Edmond daadisu 15 jir isaga oo kaga yimi xagga dambe waxa uu madaxa kaga dhuftay xabad 3 jeer waxa uu yiri isagoo markii dambe u sharaxaya askarta sababta uu dilay kaliya waxaan isweydiiyay sida uu dareemayo noqonayo haddaan xabad ku ridayay waana tijaabinay sidoo ku awooday cunuga aan qangaadhin inuu ku kaco falka mise ma tahay dilkiisii ugu dambeeyay ka hor intayna mowduuca bilaabin fadlan subscribe na soo dheh hadduu muuqaalka ku qancina like noo saar share na sii dheh si asxaabtaadu la wadaagtid daawasho wanaagsan bilowgii caruurnimadiisii waxa uu ahaa Edmond Camber mid dhib badan markuu ayidii xabadda ku dhuftay waxa uu hubsaday inay dhimatay kadib waxa uu meedkeedu u qaaday qol cidlo aan cidna deganin waxa uu sugay awoogii ilaa intuu guriga ku soo laabanayo markuu maqlay guuxa gaadhiga waxa uu soo baxay banaanka isagoo oo dhoola cadeynaya ka hor intaanu xabadda ku ridin waxa uu isna madaxa kaga dhuftay xabad balse Edmond waxa uu muuqaalka ka raacay hooyadii oo lagu magacaabi jiray Claire Camber waxayna ahayd gabadh maskax badan xilligeedii iskuulka waxayna ahayd mid ku riyootay inay guursato nin Amerikaan ah oo karti badan sideeda markii ay dhamaysay jaamacadda waxay si dhaqso ah uga mid noqotay madaxda waddanka halkaas ayayna isku barteen aabaha Ed oo lagu magacaabi jiray Edmond waxa uu ahaa hogaamiyaha ciidanka kadib markuu ka qayb galay dagaalo waxa uu ku soo laabtay Mareykanka waxa ahaa mid qaba xanuuno nafsiyan ah hadaladu markii dambe yiri waxa kamid ahaa in aad ka hortagto xaaskaaga ayaa ka hadalka oo ka hortaga guuta ciidan ah 18 bishii 1948 ayaa waxa uu dhashtay wiilkoodii saddexaad waxayna u bixiyeen Edmond Emil Camber waxa uu la soo barbaaray hooyadii kadib markuu aabihiis kaga tagay qoyskiisii waxa ayna hooyadii ahayd mid canaan iyo dilmo iskugu diri jirtay maalinkii oo dhan waxa ayna seexin jirtay qol ay ku nool yihiin jiirar waxa uu ahaa mid taagan ilaa uu markii dambe dilay bisadii guriga joogtay madaxeedina kana soo goostay soona dhex dhigtay qolka xilliga Claire waxay ahayd mid raadinaysa nin kale ay xiriir la wadaagto marka ay ku fashilantay waxa ay go'aansatay in ay u geyso awoogii yaayidii waxa uu ahaa mid caadaystay dilka xayawaan kasta oo ka soo horbaxa isagoo u adeegsanaya qori waxaana markii dambe loo geeyay dhakhtar cilmi nafsi ah si loogu dabiibo waxayna la yaabeen dhaqaatiirta habdhaqanka Ed iyo aqli badnaantiisa waxa uu ahaa mid waqti la qaatay dhaqaatiirtii dabiibisay markii daadiisu ahayd 22 sano waxaana lagu celiyay gurigii hooyadii 7 bishii sanad 1972 Ed waxa uu watay gaari waxa uu ku soconayay xawaare sare isagoo ku sigtay inuu jiro laba hablood oo lagu magacaabo Bessie Marie Ann Anita Lugesa oo doonayay in ay ka talaabaan wadada waxa uu ku sii qaaday gaadhigu watay si uu gaarsiiyo halkay doonayeen ilaa uu markii dambe arkay inuu la kacayo wada qaldan waxa uu markii dambe gaadhigii istaajiyay meel cidla waxa uu ka haystay mid ka mid ah halkuu tii kalena ku sii xidhay sanduuq waxa uu madaxa u geliyay jawaan lana dhacay bir ilaa nafta ka dhacday waxa uu u soo noqday tii kale iyana sidii si leeg buu ku sameeyay waxa uu ka goostay madaxyadoodii 14 bishii 1972 waxa uu la kulmay gabadh kale oo lagu magacaabo Aikuku uuna dilay waxa uu meedkii ku soo qaatay sanduuqii gaadhiga ugu jiray waxa uu ahaa mid aad u la dhacsan oo gaarsigu wado marmarka qaarna waxa uu la kulmi jiray dhakhtarkiisii dabiibi jiray iyadoo madaxyadii dadku uu soo laayay ugu jiraan gaadhiga waxa uu markii dambe Ed ku soo noqday gurigii hooyadii uu ku noolaa kowdii January 1973 waxa ay isbarteen gabadh kale lagu magacaabo Santishan waa uuna dilay iyadana waxa uu meedkeedu u qaatay gurigii hooyadii waxa uu ka goostay madaxii sidii caadadu ahayd waxa uu ku aasay meedkii inta kale beer gurigooda ku dhex taalay sidoo markii dambe sheegay sababtu waxa uu sameeyay ay tahay in hooyadii ay doonayeen markasta dadka ay soo eegaan kadib markuu qariyay meedad badan waxa ay askartu ageysiin ardayda in ay raacin baabuurta ay wataan dadka aanay garanayn isla sanadka bishii labaad Ed waxa uu dilay laba gabdhood oo lagu kala magacaabi jiray Rosalinda Shop and Alison Leo waxa uu mariyay wadadii kuwii ka horeeyay uu mariyay mar uu bixinay waraysiga ay askartu ka qaadisay waxa uu ku sheegay sababtu madaxyada dadku uu dilay ugu qaadan jiray ayuu yiri helida madaxa waxa ay iga dhigneed sida anigoo ku guuleystay koob 20 bishii Afraad isla sanadka ugu dambeyntii waxa uu go'aansaday inuu dilo shaydaanku uu la dagaalami jiray noloshiisa oo dhan waxa ayna ahayd hooyada dhashay habeenka wuxuu ku soo noqday guriga goor hore isagoo ku sugan xaalad ku ka dhacsan yahay waxa uu u galay qolkeedii iyadoo oo buuga qarsanaysa
waa uu naskiga tagay ilaa uu markii dambe ku soo laabtay soo dhawaadkii iyadoo uu hurdo sariirteeda waxa uuna madaxa kala dhacay mandaraq uu sitay kadib waxa uu soo qaatay meedkeedii waxa uuna ka goostay madaxii kadib waxa uu garaacay hooyadii saaxiibadeed waxa uuna ka dalbaday inay guriga ugu timaado ay ka jirto xaflad kadib marka ay soo gaadhay gurigii waa uu dilayana kadib waxa uu ka haystay gaadhigii uu watay waxa uuna garaacay askarta una sheegay inuu dilay hooyadii iyo saaxiibadeed balse ma ay rumaysan waxa uuna u sheegay inuu mar labaad soo wici doono dabada waxa uu garaacay askari ay saaxiib ahaayeen waxyaalaha ka dhigay in aan laga shakiin ayaa ahayd in marmarka qaar waqtiga la qaadan jiray askarta laftirkooda kana wada sheekaysan jireen dilaaga ficilada arxandarada sameynaya qofna ma uusan filayn in wiilka bulshaawiga ee kartida banaan ee Ed uu marna noqon doono dilaaga waana la qabtay ugu dambeyntii haddaba daawade ma u malaynaysa in ninkaasi maskaxiyan aanu ahayn qof dhameystiran walaa mise habdhaqankii foosha xumaa ee hooyadii kula dhaqmaysay ayaa sabab u noqday inuu ficilada ku kaco